soo dhawaada barnaamijkeennii astaan horumar aad uga barateen Puntland TV studioga Melbourne dalkan Australia. barnaamijkeennan maanta waxa weeye barnaamij aad u xiiso badan oo haddii aad maqli jirteen geela Australia oo durjoogta ee markaa dad badan fahmeen qiimaha iyo qayaha uu leeyahay geelu iyadoo Soomaalidu runtii ay tahay dad aad u yaqaan geela ama dhaqda. waxaa barnaamijkan maanta ku eegaynaa sidaan idin sheegayba geela Australia oo ah mid durjooga muddo dheer iyo waqtiga uu wadankan geelan yimid ama la keenay ama uu soo qaxay anaraade. barnaamijkan waxaa idin la socodsiinaya Maxamed Saciid oo ah wariyaasha ka howlgala Puntland TV wadankan Australia. barnaamijka Saciid Maxamed Saciid wuxuu ku eegayaa bar taariikhdii iyo waqtigan xaadirka la joogo ee ku soo dhawaada barnaamijka. ogtahay in wadankan Australia inuu yahay wadanka kaliya ee adduunka leh geel duurjoog ah. sidaana la socono geelu wuxuu ka mid yahay xayawaanka dabjoogta ee bini'aadamku uu dhaqdo ama xanaanaysto. haddaba sidee waa geelanu ku yimid Australia markii hore xagee baa ka yimid? haddii aan dib ugu laabano taariikhda, sanadku markuu ahaa 1851 ayaa dahab waxa laga helay gobolka Victoria. xilligaas oo dardar la geliyay soo saarista iyo ka ganacsiga dahabka, waxa loo baahday in lagu sameeyo sahmin dhulka gudaha ee Australia. arintaas oo loo saaray guddi sahmin ku sameyn kara gudaha Australia oo ka kooban 19 qof oo guddigaas uu leeyahay xirfado kala duwan ayaa waxay u baahdeen gaadiid ay isticmaalaan. gaadiidkaas ayaa wuxuu noqday inay bartilmaameedsadaan gaadiidka ay ka dhigtaan gaadiid kale markaa ma jirin xilligaas oo aad u adkeysan kara dhulkaas qarfaha u adkeysan kara. waxay noqotay in geel laga keeno dibadda. geelaas oo ahaa 24 geela oo loo xil saaray inuu wadanka keeno nin la yiraahdo James George Lansdale. 1860 bishii June ayaa la keenay geel ugu horeeyay Australia oo 24 neef ka kooban oo uu keenay ninkii loo xil saaray ee James George Lansdale. haddaba waxaa lagu wareejiyay 24 geel ah 19 nin oo loogu talagalay inay ku sameeyaan sahminta dhulka gudaha ee Australia. 19kaas nin waxaa hogaaminayay laba nin oo kala ah Robert O'Hara Brooke iyo William Chom Wills. waxay bilaabeen sahankooda ay ka bilaabeen magaalada Melbourne iyagoo ay ahayd magaalada markaas ugu weyn dhulka Australia magaalo ahaan oo magaranaysa si fiican loo deganaa deegaan ahaan. dahabkii iyo wax soo saarkii markaa ka socdeen uu keenay inay noqoto meel qani ah oo sameyn karta sahankaas oo kale. koonfurta Australia ayaa laga bilaabay sahankii waxaan lagu tagay ilaa waqooyiga meel la Canberra 3250 kilomitir ayay socdeen sahankaas. sahankaas wuxuu ahaa kii ugu horeeyay ee lagu sameeyo dhulka gudaha ee ka fog xeebaha ee Australia. wuxuuna ka bilowday magaalada aan joogno ee Melbourne sidaan hore ku sheegay ee Victoria, gobolka Victoria caasimadda u ahayd markaas. wuxuuna lagu tagay meesha la Canberra ee ku taal waqooyiga. waa dhul isu jira 3250 kilomitir. sahankaas kadib waxaa la ogaaday in geelu uu yahay xayawaan adkaysi badan leh isla markaasna qaadi kara xamuul badan aan u baahnayna biyo fara badan iyo raashin fara badan iyo waxa aan u baahnayn. isla markaas waxay ogolaatay dawladda Australia gaar ahaan gobolka Victoria in la soo dejiyo 15,000 oo geela oo ay la socdaan raggii hogaamin lahaa ama dhaqi lahaa oo laga keenay wadanka wadanka waagaas loo yaqaan Hindiya, balse haatee ay noqon karto ama Pakistan ama wadamada dariska ah. geelaas wuxuu ka qayb qaatay dhisidda dhul fara badan oo Australia kamida. hadday noqon lahayd jidka xadiidka tareenka uu maro, hadday noqon lahayd laamiyo, hadday noqon lahayd dhismayaal kale oo qiimo kula wadankan. alaabta xamuulkeeda ama dhismaha lagu dhisi lahaa ama wixii lagu qaban lahaa oo dhan geelas ayaa lagu qaaday. markii la soo gaaray 1930 oo la helay gaadiidka caadiga oo aan maanta aynu naqaano oo baabuurta iyo treenada iyo mootooyinka ay soo bilowdeen, waxaa la mamnuucay adeegsiga geela loo adeegsanaya xamuulka. isla sanadkaasna waxaa la bilaabay in geeli la laayo ama siyaabo aan fiicnayn oo ka fog bini'aadanimada loo dhaqmo, taasoo keentay raggii geel xanaaneyn hayay ama dhaqahay ee laga keenay Hindiya inay geeli duurka ku sii daayaan. geeli duurka lagu sii daayay haddaba maxaa ku dhacay? geeli markii duurka lagu soo wuxuu noqday duurjoog meeshuu awal dabjoog ahaa. nasiib wanaagsan Australia ma joogo xayawaano kale oo dili kara ama cuni kara geela sida libaaxa oo kale iyo wixii la mid ah. geeli aad iyo aad u tarmay wuxuuna tiradiisu gaadhay milyan iyo in ka badan.
haddaba maxaa dhacay marka waxaa dhacday in geeli uu dhibaato badan u keenay dadkii beeraleyda oo xayawaanada kala dhaqanayay sida looda iyo ariga iyo idaha dhaqanayay beerahooda inuu burburiyo meelihii ay biyaha u shubeen xayawaanada ay dhaqanayay inuu burburiyo guryahoodii inuu shida badan u keeno iskuuladii dhismayaal badan shida ku keeno shidadaas waxay keentay marka in dawladdu ay soo saarto sharci lagu laynayo qarashna lagu bixinayo leyntiisa waxa nasiib daraa in geelaas aad loo laayay si xifog bini'aadanimada tiradiisa la gaarsiiyay 300,000 in ka yar haddaba xilligan hadda aan joogno ayaa dad Australiani waxay garteen faa'iidada geelu uu leeyahay oo ay bilaabeen xanaaneyntiisa iyo dhaqashadiisa mar kale waxay u sameeyeen xiriyo waxay u sameeyeen meelo biyaha ka cabo waxay u sameeyeen qaab ay ku dhaqaaleyn karaan isla markaasna waxay bilaabeen inay dhoofiyaan oo dibadda u dhoofiyaan sida wadamada Carabta Sacuudiga iyo Imaaraadka kale ama hadii kaleba ay ka maalaan caano arintaas oo xiiso gelinaysa dad badan oo hadda jooga wadankan Australia oo ay kamid tahay Soomaalidu oo iyadu hidaye dhaqan u leh inay maasho ama dhaqato geela sida loo liso wixii oo dhan waa naloo sharaxay marka insha Allah laga yaabaa Soomaalida Australia degan inay sidan oo kale maadaama geel aad u yaqaanaan dhaqankeena uu yahay xayawaanka ama xoolaha ugu wanaagsan ee ku faano in Australia Soomaalida degan ay xanaanayaan geel anigoo aaminsan haday isku dayaan Soomaalidu inay sidan ka wanaagsan ay u xanaaneyn karaan maadaama dhaqanka geela si fiican u yaqaanaan waa xanaaneyn waa isku dayaynaa in xanaaneyno hadii Ilaahay qadaro waxaan maanta halkaan u imaanay inaan balse in yaro experience ka helo sida geela Australia loo dhaqaaleeyo because waa kala duwanahay wadankan waxa waaye different way baa u dhaxeeya geelan waa la iska sii dayn jiray geeduhu daaqi jiray geelan waa geel meel ku xareysan oo biyaha iyo cawska halkaan lagu siiyo marka anaga aad baan u jecelahay hadaan Soomaalinahay inaan xanaanaysano bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxa la yiraahdaa Safiya Nuur Horeeye waxaan u dhashay gobolka Mudug Gaalkacyo anoo ka soo jeeda waxaan halkaan maanta uga soo qayb galay xaflad open day ah oo loogu sameeyay geel halkaan Australia Victoria Melbourne lagu xanaaneeyo
waxaa halkan ka shaqeeya wiilasheena marka invitationka noo keeneen oo dhaheen geel baa halkan xafladiisii lagu daafurayaa runtii waxay nala noqotay wax fantastiga wax lagu farxo weeye geelka anagu waa jecelnahay waa ku soo kornay intaasaan ku soo leekaanay maanta waxay ila tahay inaan gaalkacyo mudug joogo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa casimaada ayna soo catumeen oo qolyahan geela dhaqanaya iyo wiilasheena inta ka shaqeeya iyo Somali Channel iyo Puntland TV iyo dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay geelu ha jiro safiyo dadku runtii waa wax maskaxdooda ka weyn hadda waan arkaa anigu geelay oo runtii geelay Soomaaliya oo kala ah laakiin waxyaalaha la isweydiinayo waxa kamid ah geelan caanaha laga liso dhadhankoodu ma yihiin kuwii Soomaaliya oo kale ama kuweennii oo kale adigu ma dhadhamise caanaha geelan caanahan runtii waan cabay waa geeleenii caanaheennii oo sidoodii waaye waa kuwaas maxay tahay waan cabnay waan gadnaa waa caanaheennii oo sidoodii oo bayuur ah aad iyo aad baad mahadsantahay adaa mudan waxaan ku faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo bandhigan geel lagu dhaqaaleeyo magaalada Melbourne Australia meel agteeda ah waad u jeedaan caanihii oo aanu ka maalayno waxaan idin sheegayaa geeli halkaan nooga dabay geeli Australia oo kuma malaayiin ah oo duur ku jiray waa kaas hadda maanta halkaas lagu soo xanaaneeyay halkaan maanta la keenay baarqabyadiisii waa kuwaas halkaas ku wada jira hadda halkaan intaan yarta aad u jeedaan laakiin geela weyn wuxuu ku jiraa xero weyn oo halkaas banaankaas u daaqaya meelihii looda lagu dhaqaaleyn jiray ayaa waxa loo bedelay geel caanaha geelu waad u jeedaan way ka caafimaad badan yihiin wax kasta marka waxaan leeyahay geel aan iska daba joogno oo duur jooga inta iska dayna geel hal xareeyo intaas yartaa waxaa laga lisaa caana aad u fara badan ilaa Melbourne oo dhan iyo Australia oo dhan laga cabo marka waana ka caafimaad badan yihiin wax kasta waxa la yiri daawo badan bay leeyihiin marka waxaan anigu halkan maanta hadalka uga soo jeedinaya dalkaygii oo geel badan lagu dhaqi karo oo laga faa'iideysan karo marka waxaan leeyahay geelashii aan ula nimaadno hab cilmiyeysan inkastoo aan hadda maqlahayo magaalooyinka waaweyn oo dhan in maartay lagu dhaqaaleeyo geel iyo hadda caanihiisa meelo badan laga maalo magaalooyinka laakiin waxaan jeclaan lahaa xataa meel walba in reer walba ay inta xareeyaan cawskaas loo dhigayaa wax dhiblo uu leeyahayna ma leh marka waxa weeye waa ilaahay nasriga geela soo noqday marka waxaan jeclaan lahaa inaanu ka faa'iideysano khibradda waxaan kale idin sheegayaa geelan waxa dhaqaaleeyo wiilal Soomaali ah ayaga tababara geelu waa Australia waa duur joog waxa weeye duurkaas uu joogaa asagoon cidina lahayn والله waxa weeye aad bay wixii soo badan tahay inaan maanta halkan isugu nimaadno annagoo u dabaaldegayna sanad guuradii hal sano reer cadaan ah oo dhaqanaya geel marka waxa weyn ay aad ay noo taraysaa laftiga iyaga sababtoo ah ismaanu lahayn Victoria waliba gaar ahaan geel ayaa la keenayaa lagu dhaqanaya laakiin maanta waxaanu aragnaa reer cadaan inuu geel ku dhaqanayaan geelani haddaan taariikhiyan xataa sidii ku yimid aan idinkaga warrabo macnihii qaaradda Australia uu ku soo gaaray waxa weeye geelakan waxaa la keenay waqtigii ay degahayeen dadka Yurubiyaanka ama Ingiriisku waddanka kan u degahayay yaa geelakan dhulka la keenay geel u dhashay dhulka maahan marka waxa weeye waxa laga keenay dad aragtid geeli labada tuurta lahaa maahan waa geel hal tuur leh wuxuu markaa u egyahay geeleyni ayuu u egyahay ma garanaysaa marka marmar waxaan isiraahdaa shawaaba geelashii uu Smith in ka soo dhacay soo waxaad gartay baahan sababtoo gabi waxaa jiray Smooga Smith iyo ninkii ay rasoofsaday soo waxaad gartay baahan marka
halaha haddaad fiirisidna waa qaarkood waxaa is leedahay waa sumad garanaysaa marka aad iyo aad baan ugu bogaadinaynaa inaan garanaysaa caanihiina ayna soo gaareen dadka maanta hadda halkaan dhooban Soomaali badan oo waliba Melbourne ka yimid ayaa garanaysaa soo gaaray geela kan waxaan rajaynaynaa dhaqan baa u leenahay geela oo waxa weeye wax dhaqankeena ka mid ah weeye waxayna u egtahay markaan fiiriyaba inaan anigu waleeyahay waan u qabaa marka insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan geelal aftigeenu waqti ay noqotaba inaynu samayno maadaama aynu geeleni ka soo qaxano haddana isagoo naga daba yimid baanu aragnaaba marka insha Allah bixir magacaygu waa Khadiija Xasan aniga oo u dhashay gobolka Soomaalida ugu geel badan oo la yiraahdo Doollo waxaan maanta aad ugu faraxsanahay wadanka Australia ku noolahay gobolka Victoria geeli lagu xanaaneynayo sanad guuradiisii inaan ka soo qayb galo sababtaas oo ah la jecel geela iga haysa iyo aqoon aan u leeyahay waa lisi jiray waa raaci jiray hilibkiisaan cunay aad iyo aad baan geela u jecelahay saasana maanta halkaan ku assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh waa maasantii. Hello Maggie, welcome to Somali Channel. Hello. What makes you to look after these camels? When did you start and what motivates you to become a camel looking after camels? My husband Chris and I first looked into camels last year, back in 2014. We had worked in the Northern Territory in the outback of Australia where we'd seen many wild camels. We fell in love with camels many years ago, and now down here we've been dairy farming with cows for many years, and we decided to milk camels because we love them so much. Is it expensive to look after and run this business? It has been a very expensive exercise for us to build everything because in Australia and in Victoria you need to be licensed to pasteurise and sell camel milk, and that's very expensive to get licensing and the food safety program to make it fit for human consumption. In Australia there's a lot of camels live in the jungles, and I hear nobody owns them except the Australian government looks after them. Yes. And tell me, if you want to run a camel farming, what's the requirement? Can a lot of people do the job you do here, or? So there are a lot of camels in the outback of Australia. Australia has the largest amount of minimal disease camels. We have estimated of almost 1 million camels in the outback Australia that nobody owns. To catch the camels and bring them back to Victoria and house them and teach them with all the fencing, it costs a lot of money, and you don't need a license to milk the camels, but you need license to sell the milk. So if someone was looking to milk camels in Australia, you'd have to have a farm, and then you'd have to set up all the equipment, and then you would need to find camels from the outback and good workers like Ahmed and Young Lee to help train. They are a huge asset to our business here. I know the camels eat a lot of food. Yes. What one camel, how much it costs you a day? To feed one camel a day costs us $8 a day. But you say a camel eats a lot, but compared to a cow that I'm used to milking, dairy cows, bovine, they don't eat so much. Cows eat a lot, camels don't eat as much, but they eat lucerne and grass and cereal hay and a dromedary mix for grain. Milking the camels, do you sell them milky as they come from the camel, or you have to sterilize and? Yeah. So Ahmed and Young Lee milk the camels, and they milk them with a portable milking machine, and that goes up onto their udders, and it harvests the milk. It goes into a milking can, and then we put that milking can into the processing room where we filter the milk and we pasteurize it. This heats it up to 63 degrees for 30 minutes and then cools it back down with no additives or preservatives, so it's very fresh milk. I heard that the camel milk treats a lot of diseases within the human being, like yes, diabetics,
blood pressure and all this. Are you aware of that? Or? Yes, we have a lot of people drinking our milk with they have diabetes, or they're on the spectrum with autism, or they have gut problems, Crohn's disease, nervous tics, so many things people drink our milk for, and it's helping their systems and their gut and helping with behavioural problems and general health. It's proven by scientists? There's not a lot proven in Australia, but there's lots of papers in overseas that have scientifically found that this helps. How many camels do you have in this compound now? At our farm here, we're on 107 acres and we have 40 or 50 camels, and we have room to grow. We are hoping to grow our camels. We could milk 200 or 300, and we're milking only between 8 and 14 at the moment. This is growing? It is growing. It's been very good, yes. Yes. Thank you very much, Maggie. Thank you. I'll ask a few questions, Ahmed. Ahmed galab wanaagsan. Imsaad halkan joogtood ka shaqeynaysaa? Walaal waxaan joogay 2 bilood. 2 bilood baan hadda shaqeynay. Farqa u dhaxeeya geeli Soomaaliya iyo geela kale? iyo farq weyn uma dhaxeeyo. Dadka halkan jooga waxay yiraahdaan geela Australia waa geel duurjoog ah oo khatar badan oo maaragtay aan dadka aqoon, laakiin waxa moodaa inuu ka sahlan yahay geeleenii kaleeto sababtoo ah wadankan bahal ma leh, libaaxna ma leh, dhurwaana ma leh. marka uu ka sahlan yahay waligi bahal ma arag, dadka inuu barto si sahal ah bay maaragtay buu dadku ku bartaa. marka geelaan waa fududahay, waa ka sahlan yahay geeli Soomaaliya. geela badan ee duurjoogta ee Australia ku nool ma sahlan tahay in la tababaro sidaan oo kale meel loogu xaray? niyo aad bay u tababaran bay u fududahay sababtoo markaan anagu u nimid Megan iyo Chris oo halkan geela ku haysta geelu waa u tababaraa wax aqoon oo fog oo ay geel u lahaayeen ma jirto. si tartiib ah bay u tababareen oo fudud wuuna u tababaraa xooluhuna wax kasta oo xayawaanana si sahlan oo fudud baa loo tababari karaa. caanihiisa ma isku dadaan idinku markaad la seysaan iyagoo aan la warshadeyn ama aan la marinin habka casriga ah oo caanaha ugu filter galayo ma isku dadeen sidii Soomaaliya inaad tijaabisaan dhadhanka caanaha? maya wali isku baanadii laakiin waa isku dayeynaa insha Allah. dadku waxay soo jeedinayaan xanaanaynta geela halkan faa'iidada caanaha geela uu leeyahay waa marka geelu dhir kala duwan u qaado sida noo muuqata geelan waa mid la xanaaneeyo oo meel yar ku jira arintaasu miyaysan arin idin muuqata ahayn sidee noqonayaan caanaha geelan laga lisay maadaama oo la quudinayo oo caws lagu keenayo guriga? niyo geelaan waa daaqaa horta waa xor geel meel ku xireysan oo xirxiran ma aha. geelaan kaymu daaqaa dhirta waaweyn oo aragtay buu harsadaa waa daaqaa waa socdaa oo uga caana badan yahay uga borotiin badan yahay dhinac walba uga nacfi badan yahay.
isaga u dulqaato amarka baadiide diihaanka gaajada isaga u dulqaato amarka baadiide geela markuu daraaran yahay barnaamijkeena aanu kaga hadlaynay geela ee Australia maanta inta ayaanu kusoo gabagabaynan intaynu barnaamijkan oo kala la kulmayno waa Cabdi Cilmi oo leh sida iyo nabadgelyo iyo nooli kulanta barnaamijkii astaan horumar oo halkaas sidii aan kaga soo wadi doono asbuucyada soo socda nabadgelyo